iyada oo maanta loo ballansanaa doorashada maayirka iyo ku-xigeenka degmada Boorama iyo dhaarinta xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa dib loo dhigay doorashadii maayirka iyo ku-xigeenkiisa taa beddelkeedana waxaa halkaasi lagu dhaariyay 13 mudane ee dhawaan loo soo doortay degmada Boorama wuxuuna loolan adag ku dhaxmaray gudaha magaalada Boorama xisbiyada kala duwan ee wadani iyo kulmiye kuwaasi oo ku hirdamaya jagada maayirnimo ee degmada Boorama maanta qodobkeena inoo yaala waa kitaabka Ilaahay inaad ku dhaarataan siiqada ana inni akhriyaya waana diga daba oranaysaa insha Allah taala kitaabka waxa Ilaahay ugu dhaaranaya inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo wabillahi tawfiiq intaasi kadibna barasaabka gobolka Awdal halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dib loo dhigay kulankii maanta taa beddelkeedana maalinta bariya loo fadhiisan doono doorashada maayirka iyo ku-xigeenkiisa nin baalbeel waxa la yiri kitaabyo ku soo loorin jiray baa jiro gaagaabnaayo ayaa la ku dhaara kitaabkan kaasuu isma la kan yar waxba ku yeeli maayo dabeedna baaluhu jaray kitaabkii yaraa markii baa dabeedna xumad qabatay kaasal war maxaa ku haya kaasuu wallahi ku soo gubay ku soo karay kitaabkaas oo idinku soo karin insha Allah khayr baan rajeenayaa maanta hawshan waxay ku dhamaatay dhaarta rutule mushkilad badan haysato habsankiina badan imika 10kii baynu maraynaa 8diina waynu ballanay rutule hadaa la 9ka subaxnimo 13kii noo qura dadkiina kala dhami wada fasaxaadtiin iyaga isu shirgudoominaya iyaga is dooranaya hawshaas iyaga leh xogayaha qolo wuxuu qurquraya iyaanu goobjoog ahanayn baa ugu helinayna si kastaba haatee waxaa jagada maayirka iyo ku-xigeenka si weyn ugu loolamaya xisbiyada wadani iyo kulmiye kuwaasi oo kala wata tiro xildhibaana ugu ololeynayaan maayirka iyo ku-xigeenkiisa waa Cabdilaahi Daahir Wacis TV caalamiga Saab magaalada Boorama.